inta aadan muuqaalka daawan waxaan ka codsanayaa kanaalka haddii aad ku cusub tahay taawa calaamadda subscribe-ka ee nagu soo biir sidoo kale waxaad furtaa gambaleelka si uu kuu soo gaaro video kasta ee ugu dambeeya aanu kanaalka soo gelinno waad mahadsan tahay awalan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh saaxiibayaal walaalkiin aadam nuur xasan waxaad soo dhawaatiin kanaalkan muuqaal barashan insha Allah maanta barnaamijkeena diyaaleen waxaan rabaa inaan la wadaago qaabka loo kala qaybiyo hard drive-kaaga ugu horreyn marka intaynu gudagalay muuqaalkan waa inaanu fahanaa muxuu yahay hard drive-ku sidoo kale waa inaanu fahanaa maxaa faa'iido ugu jirta haddii aan kala qaybiyo hard drive-ka sidoo kale waxaan ka hadli doonaa waxyaabaha igu dhaliyay muuqaalkan inaan soo duubo ku laabana marka su'aashii ugu horeysay muxuu yahay hard drive-ku waa caloosha kombiyuutarka waa maskaxda kombiyuutarka waa meesha aad ku keedsatid xogtaada waxaan rajaynayaa intaas inaad fahantay tusaale si kale si aad u fahantid hadda waxaa laga yaabaa inaad muuqaalkan aad ka daawanaysid telefonkaaga wuxuu leeyahay meel aad ku keedsatid xogtaada waxaa loo yaqaanaa maskaxda mobilka sidoo kale kombiyuutarkan wuxuu leeyahay meel aad wax ku keedsatid oo maskaxa waxaa loo yaqaanaa marka hard drive-ka ama hard disk aad dhihi kartaa sidoo kale aan ka jawaabno marka su'aasha labaad waxay ahayd maxaa faa'iido ugu jira haddii aan kala qaybiyo maskaxda kombiyuutarka ama hard disk-ga faa'iidooyin la soo koobi karin ayaa ku jirto simply waxaa tahay ardayga wuxuu qaataa maadooyin fara badan aynu kasoo qabano dugsi sare oo kale 12 maado qaadataa 12ka maado adigoo arday ah haddii aad aadid ka waran hal buug ayaan ku dhigayaa 12kaas maado buugaaga laga yaabo 100 page inuu ka kooban yahay aqligal ma tahay waa maya kombiyuutarkana markaad imaatid marka sida buugaagtii oo kale waxaynu kasoo qabanaynaa marka buugaagta GB-yaal aynu haysanaa ama gigabyte si aad u taqaanid marka gigabyte-kaas haddii aadan kala qaybin oo sida buugaagtii oo kale iskuulka buugaagta maadooyinkan physics waa kan chemistry waa isaasaa dhacdaa Soomaan marka GB-yaalkaas haddii aad u baahan tahay waxaad u kala qaybin kartaa marka haddii aad tahay arday oo kale kombiyuutarkaaga waxaad dhihi kartaa qaybtan waxaan ku ridanayaa physics 10 qaybtan chemistry saas oo kale waxaan rajaynayaa inaad wax ka fahantay faa'iidada ay leedahay kala qaybinta hard disk-gaaga saaxiib maxaa ku dhacay oo ku jeeda muuqaalku waad daawanaysaa weli like ma saarin fadlan muuqaalka like saar aad u mahadsan tahay aynu soo laabana marka waxyaabaha igu dhaliyay muuqaalkan inaan soo duubo waxay igu dhalisay waxaan arkay asxaab aad u badan oo ka aadan ahaan ani aan leeyahay oo kombiyuutarkooda oo aad u isticmaala desktopka haddii aadan aqoon waa shaashadan sare ee kombiyuutarka shaashadan sare ay waxay ka samaysanayaan foldero dokumentiyaal ay ku urursanayaan muuqaalo waxyaabaha ay u baahan yihiin laakiin waxyaabaha meeshan aad dhigtid waa dhigi kartaa ha laakiin waxay xisaabsan yihiin waxyaabaha meeshaas aad dhigtid local disk C-ga sidoo kale waxaad dhihi kartaa maxaa dhib ku jiro waxyaabaha desktopkan yaalo desktopkan banaanka yaalo haddii xisaabsan yihiin sidaa sheegtay local disk C-ga waad weydiin kartaa ha local disk C-ga tusaale ahaan kombiyuutarka waa electronic soo sax ma aha kombiyuutarka wuu halaabi karaa marka qaybtan local disk C-ga tusaale ahaan kombiyuutarkaaga hadduu ka halaabo no reversible waa qaybtan local disk C-ga ama lama soo celin karo daatooyinka meeshan ku kaydsan waxaan rajaynayaa inaad fahantay waxyaabaha igu dhaliyay inaan soo duubo muuqaalkan marka local disk C-gan waxyaaba uu ku fiican yahay waxaa waaye inaad waxa ku duuban sida tusaale ahaan windowga operation systemka aad isticmaalaysid qaybtan waxa kugu duuban tusaale ahaan windowga oo kale ay kugu duuban sidoo kale waxa kugu duuban programmada aad isticmaashid ay kugu duuban marka waxaad u baahan tahay meel kale aad waxyaabaha xogogtaada aad u baahan tahay inaad ku ridid tusaale ahaan hadda waxaan u kala qaybiyay qaybtan GB-yaalkan laba qaybood ayaan u kala qaybiyay kan waxa ku qoran 10 muuqaal production ay ku qoran marka sidoo kale waxa ku sahlanaanaysa markaad kala qaybisid hard disk-gaaga waxyaabo kasta inaad meel ugu tagtid kuma wareeraysid kombiyuutarkaaga marka waxaan rajaynayaa dhammaantiin inaad wada fahanteen faa'iidooyinka ku jiro kala qaybinta hard disk-gaaga ama maskaxda kombiyuutarkaaga marka aynu gudgalno qaabka u kala qaybin lahayd marka si aynu u kala qaybinno maskaxda kombiyuutarkeena waxaad soo furtaa my computer ama file explorer wixii doonto ugu yar kadib midkaad rabtid inaad kala qaybisid ayaad waxaad ku samaynaysaa waad dooranaysaa local disk C-gan laba tiro ayuu leeyahay tirooyinkan aan fahanno intaynu kala qaybin tiradan ugu horeyso gacanteeda bidixda ka bilaabanayo waa 401 GB free oo 500 GB tan midigtaada jirto oo dhankana mouse-ka aan ku hayo waxa waaye tan totalka uu ka kooban yahay waaye oo hadda tan totalka meeshan ku jiro waxa waaye uu ka kooban yahay 500 GB out of marka 401 GB tan inta free-ga ay haysatid waaye marka labadan tiro ayaad kala jaraysaa wixii ku soo baxa intaad isticmaasho waaye tan dhankan bidixda jirtana waxa waaye inta free-ga ku waaye waxaan rajaynayaa intaas inaad wada fahantay labadan tiro sidoo kale marka partition ayaa loo yaqaanaa marka kala qaybinta la kala qaybinayo drive-kaaga laba qaabood waad u isticmaali kartaa inaad qaybta surging aad ku qortid wax loo yaqaano partition
meeshan kadib waxa ku soo bixi doono create and format hard disk partition ayaa ku soo bixi doona haddii aad inta dooratid ama sidoo kale adigoo inta jooga file explorer waxaa samayn kartaa qaybtan sare systemka meeshan systemka waxaad ka dooranaysaa manage aad ka dooranaysaa manage markaad ka dooratid waxaana quseeyo qaybtan ay ku qoran tahay storage-ka waxaad ka dooranaysaa sidoo kale qaybtan hoose disk management aad ka dooranaysaa disk management markaad ka dooratid marka dialog boxigan ayaa ku soo furmi doona meeshan u baahannahay waa meeshan aynu ka kala qaybin lahayn hard drive-keena ama hard disk-geena ama maskaxda computer-ka waxaan u baahannahay marka midkaad u baahantahay aad soo dooranaysaa hadda waxaan u baahannahay marka inaan kala qaybiyo midkan ay ku qoran tahay 10 muuqaal production totalkiis waxa waaye 119 GB haddana waxaan haystaa 77.1 GB aan haystaa marka midkaad u baahantahay horta inaad kala qaybisid waad dooranaysaa kadib meeshaad aad ku soo laabanaysaa midkii aad rabtid inaad kala qaybisid ayaad magac ku qoran haddii waxyaabo kale ay ku qoran yihiin kaas ayaad dooranaysaa aniga waxa ay u qoran 10 muuqaal production ay u qoran kadib right click ayaa leedahay midkaas waxaad ka dooranaysaa shrink volume ayaad ka dooranaysaa shrink volume browserka okay adiga waxaad ka dooranaysaa kulay shrink volume ayaad ka dooranaysaa kadib si tan ay ku soo saari doonaa waxaad u baahan tahay marka hadda calculator ayaad u baahan tahay sababtoo haday waxaynu arkaynay GB hadda waxaynu u jeednaa MB tiradii hadda MB ay isu bedeshay marka waxaynu soo furnaynaa calculator aynu soo furnaynaa calculator hadda markaynu soo furano intaan tusaalehaan hadii xogaa aan fafaahiyo qaybtan total size before shrink marka meesha ku qoran waxa waaye inta totalkiis waaye midkaad u baahan tahay inaad kala qaybisid tusaalehaan hadda 10 muuqaal production waaye 119 GB waaye marka MB ayaa loo bedelay midkaan totalkii waaye kan size-ka hadda la heli karo waaye oo ayadoo MB waaye kan marka midkaad rabtid markaad kala qaybisid ayaad inta gelinaysaa horta tiradan waxaan ku sameynaynaa godadkan kale ma dooran kartid godka aad dooran kartid ayaad imaanaysaa control A ayaad leedahay control C adiga waad soo koobiyeynaysaa markaad soo koobiyeysid waxaad sameynaysaa calculator-ka aad u imaanaysaa calculator-ka aad ku bast garaynaysaa bast ayaad leedahay ama tirada aad ku qoranaysaa waxay doontaa ku noqoto meeshan kadib inta aad u baahan tahay ayaad u qaybinaysaa tusaale ahaan kan hadda waxaan rabaa mid kale inaan ka sameeyo haddana mid kale haddii aan u baahanahay marka inaan ka sameeyo waxaan sameynayaa divide by 2 ayaan leeyahay sababtoo kii ayaan rabaa mid kale inaan ka sameeyo haddii aad u baahan tahay 3 inaad ka sameysid divide by 3 ayaa leedahay 4 haddii aad u baahan tahay GB-yaalkeeda ay badan yihiin 4 ayaad u qaybinaysaa marka intaad haysatid totalka haddii aad u baahan tahay marka waxyaabo badan inaad ka sameysid isla tiradii aad u baahan tahay ayaad u qaybinaysaa waxaan rajeynayaa af Soomaaliga xoogaa inaan isku soo celceliyay adi almuhim waxaa sameynaysaa qaybtan totalka aad haysatid intaad u baahan tahay kan inaad ka dhigtid ayaad divide by haddii aad u baahan tahay koo kale inaad ka samaysid 1 ayaad leedahay mid kale haddii aad u baahan tahay ama 2 inaad ka samaysid divide by 2 ayaad leedahay almuhim waad arki doontiin insha Allah markaan kala qaybiyo kadib tiradan waxaan u qaybinayaa 2 ayaan u qaybinayaa divide by waxaan leeyahay 2 hadda tirada markaan 2 u qaybiyay waxa ay soo baxday intaan hadda u jeedin waa MB-yaal 78,963.3 iskaga tag wax point hadii ku soo baxo wax micno leh ma ahan marka tiradan aad waxaad sameynaysaa meeshan midna xasuusna waxa soo koobiyeen sababtoo ah meeshan comma iyo waxyaabo noocaas ma qaadanayaan tirada hadda waxa ku jirta comma marka comma meeshan lama gelin karo wuu diidayaa aynu ku barowayna marka control C aan leeyahay inta aan imaanaya kadib control V aan leeyahay waad u jeedinayaan filay unacceptable character ayuu dhahay marka waxaad sameynaysaa inaad meel ku qoratid hadda waxa way 78,963 meeshan waxaan gelinayaa marka 78,963 kadib waxaan sameynayaa qaybtan ay ku qoran tahay shrink aan ku dhufanayaa shrink markaan ku dhufto waxa la sameyn doonaa qayb kale ani isla divide by 2 ayaan dhahay kii ayaa mid kale aan ka sameeyay kadib waxa la sameeyay midkan aad u jeedin hadda GB-giisna waxa waaye 77.12 GB free space aan hadda haysto waa marka hadda waynu kala qaybin laakiin wali inta kama soo muuqan marka waxa sameynaysaa si aad u soo muujisid midkaad sameysay oo free up space-ka aad haysatid oo noocan oo kale ah in lagu kala duwan yahay laga yaabo kalarada adi midkan magac aanan lahayn right click ayaa leedahay kadib waxaad ka dooranaysaa new symbol volume ayaad ka dooranaysaa sidoo kale waxaad leedahay next ayaad leedahay next meeshan marka magac waad ula bixi kartaa ay ku qoran tahay volume label aniga waxaan ku qorayaa waxaan rabaa inaan u isticmaalo video editing waxyaabaha ku saabsan oo kale kadib magaca rabti markaa ku qortid waxaa ku dhufanaysaa next aad ku dhufanaysaa sidoo kale finish ayaad leedahay finish markaa dhaadid hadda uu isbedelo waad u jeedinayaan filayaa magac wuxuu qaatay video editing kadib aynu ku soo laabana markaa file explorer-ka waad u jeedinayaan filaya waanu ku guuleysanay mid kale inaynu sameyno waxaynu ku qornay video editing aynu ku qornay marka
qaabkan aad u sameyn kartaa inaad kala qaybisid maskaxda computerkaaga sidoo kale waxaad i weydiin kartaa haddii aanan u baahnayn aadano volume-kan aan sameeyay oo aan ka maarmo sidee ayaa mid kale ugu dari karaa tusaale midka hadda aynu sameynay aynu waxaan u baahanahay isla kii hore inaan ku soo darno inta GB uu haysto kan inaan ku soo darno aynu u baahanahay inkastoo hadda GB ka markaa fiirsid kii hore xogaa ay isku mid yihiin refresh aan dhaho computerka markii la dameeyo almost way jarmi doonaan inta marka kan haddii aad u baahan tahay mid eber ah haddii aad haysatid mid kale inaad ku dartid haddii aad u baahan tahay waxaad sameynaysaa meeshii aad ku soo laabanaysaa partitionska aad ku soo laabanaysaa partitionska aad ku soo laabanaysaa marka kii hore aynu sameynay si aanu GB-yaalka aan ugu wareejino aynu u geyno qaybta ay ku qoran tahay casharo muuqaal production waxaa sameynaysaa midka rabtid inaad delayed ayaad waxaad ku sameynaysaa right click kadib delete volume aad ku dhufanaysaa kadib sidoo kale yes aad leedahay marka sameynaysidna midna xasuusnow haday wax kugu jiraan waad iska delete galeysay marka mid ay wax kugu jiraan ha iska delete galeen marka free up space ka marka hadda saan aan u haysto waxaan u baahanahay qaybta casharo muuqaal production inaan ku soo daro GB-yaalka aan ka jaray marka isla midkaad rabtid inaad wax ku dartid ayaad waxaad ku sameynaysaa right click haddii waxaynu ka dooranay shrink hadda waxaynu haysanaa marka extend volume aynu haysanaa extendiga marka waxay u dhigmataa marka midka free-ga ah inta ku soo dar marka extendiga aad ka dooranaysaa sidoo kale waxaad leedahay next sidoo kale next aad leedahay finish aad ka dooranaysaa waad u jeedin ayaan filayaa kii aynu sameynay inta ayaa lagu soo daray haddana qaybtan file explorer markaan ku soo laabto kuma jiro marka waxaan rajaynaa dhammaantiina muuqaalkan inkastoo af Soomaaliga xogaa wareer uu gale inaad wax uun ka fahanteen walaalkiin Adam Nuur Xasan oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh